soo dhawaad saaxiibayaal. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ama aan si faahfaahsan uga hadlo application-ka Sweetcoin qaybtiisa influencer-ka saaxiibayaal. Asxaabta qaar baa aad iga soo codsada saaxiibayaal oo baahi badan u qaba influencer sidii u heli lahaayeen iyo influencer faa'iidada uu leeyahay. Badanka waxay la wada soconaa saaxiibayaal ama aynu aragnayba in la isla dhex cararay influencer-ka website-ka ayaa laga dalbadaa oo sidee fudud ayaad ku helaysaa ay dadka qaar ay dadka ugu sheekeeyeen oo fiidiyo been ay ku soo duubeen. Marka saaxiibayaal iyagoo aan influencer caddeyn u hayn bay intii website tagaan bay dadkii lu goynayaan. Haddaba inaka oo taa ka duuleyna ayaan rabaa sida ugu saxsan ee ugu macquulsan wadada loo maro sida ugu nidaamsan ee influencer loo helo. Maanta kadib fiidiyogan marka daawatid laguma gaari doono ama laguma guumeysan doono saaxiibayaal habka influencer loo helo oo laguma lugoyn doono. Saaxiibayaal influencer waxba hadalkeeda ku daalinay waxa uu qabto ama faa'iidadan uu leeyahay influencer wax kale maaha. Haddaanad influencer aanu lahayn akoonkaagu waxba kama cuni karaysid. war $1 baa sheegaysaa 0.5 kuma soo jiidi karaysid. waxba kuma kala soconaya saaxiibayaal. laf dhabarta ugu weyn ee application-kin uu ku kala socda lacagta lagaga dilo lagaga cuno wax weey saaxiibayaal waa influencer. ina fahantiin baan rajeynayaa saaxiibayaal xagaada si fiican u fahantiin lacagta waxa lagaga cuno application-kin ee ku fududeyn inaad lacag kala soo baxdo wax weey waa influencer. haddaba aan soo furna saaxiibayaal application-keena Sweetcoin. application-keena Sweetcoin marka soo furtid waad u jeedaa xaggan hoose maxaa kaaga soo baxaya influencer program. marka saaxiibayaal haddayna imka influencer gudihiisa u galno bal labada qof ee ku dhufanna waad u jeedaa halkan maxay naga soo baxay influencer challenges friends iyo events. xagga balance waad u jeedaa 322 coins oo haystaa saaxiibayaal. xaggan hoose profile-kayga waad u jeedaa sawir baan saaray video ka horeeyay sawir muu saarneen marka xaggan balance-gana lacag yar baa sii jirtay. marka saaxiibayaal hadda waad u jeedaa sawir baan saaray sawirka xagga yar blue-ga TikTok waad u jeedaan iyaga verified garay anagu ma saarin iyaga saaray TikTok blue-ga oo macnaheedu waxa weeye akoonkaagu waa akoon professional oo caalami ah hadda saasoo ku verified garaysan. marka halkan waad u jeedaan total invites-ka 9 baa maraya saaxiibayaal. saako kaliya 29 qof baa soo invite garay linkiga saaxiibayaal. marka aan tuso ama aan idin fahansiiyay saaxiibayaal xagga influencer-ka linkiga totalkiisa laga helo. tusaale ahaan xaggan waad u jeedaa total maxaa ku qoran inviteska influencer-ka saaxiibayaal sida lagu helo ama shuruudiisu waxa weeye war 30 qof noo keen ama 30 qof linkiga u dir 30 qof linkiga u dirtay marka ay linkiga soo intay taabtaan ay accept ku yiraahdaan and then ay la soo degaan application-ka ayaa halkan ku soo geliyaan. dabeetana markay 30 qof aad soo buuxisay shuruuda iyagoo aan kala tashan adiga oo waxba codsan adiga oo deedeyn influencer-ka ayaa si automatic ay kugu soo gelinayaan xaggan influencer hub. magacaagana sawirka isagoo xataa plus sawir haduu yahay automatic bay verified u saarayaan saaxiibayaal. adiga oo waxba deedeyn oo influencer meel kale ka soo gelin iyaga si nadiif ah kuu siinay saaxiibayaal marka 30 qof buuxisid. tusaale ahaan aniga 27 qof markan maray bay ii soo fasaxeen influencer-ka. marka 27 ilaa 30 war adoo xataa 30 ba hadaad buuxito 27 hadaad maray xataa iyaga ku soo fasaxay influencer-ka. marka muhiimaddu waxa weeye 30 qof tirada dhawaankeen 30 qof hadaad dhaafidna tikaba si fiican oo waad u jeedaa hada 9 qof maraya influencer way sii daayay. faa'iidada uu leeyahay kala influencer waxa weeye saaxiibayaal. imika qofka waxaan ku meel yar dhawdi ka soo qabta saaxiibayaal aniga iyo qofka socday waxaan ku kala duwanahay sheego. qofka socda 600 coins ku keenay socod iyo aniga oo aan wax socda sameeyay laakiin invite sameeyay waxaan ku kala duwanay anigu waa taas influencer haba la sameeyay isagana waxa laga yaabaa inaan influencer hab loo sameeyo sabab waa su'aal muhiim ah sabab baa taala meesha
dee sababtu wax way saaxiibyaa isagu keliya wuxuu shaqeeyo coins un bishaqeey laakiin shuruudii ay shirkadda hordhigtay ee 30 qofkeen aan ku furnay influencer dee muu sameyn markaa saaxiibyaa asxaabtan leh lacagtii kala ma bixi karno xagee lacagta lagala baxayaa way nagu adagtay coinska muhiimad saaran iyagu kamay fikirin war shuruudda shirkadda ku hordhigtay 30 qof ee lacagta kula baxaysid meeday kamay fikirin kaliya waxay ka fikireen soco oo coin shaqeey intaas bay maskaxda geliyeen ay kamay fikirin influencer saan u furana maxaan wala baahan influencer saan u furano kamay fikirin waayo taa hadii ka fikir lahayn dee lacagtan ay socodka u shaqeeyeen iyo lacagtan ay invite ku keeneen inta isku darsadaan bil lacag fiican ka sameey lahayn $100 ama $500 kala bixi lahayn marka waxaan rajeynayaa saaxiibayaal hadaladeeda inaad u fiirsataan oo idinka daadigaan saaxiibayaal marka halkan hadda u socono hoose cash rewards like man arki lahayn hadda aanan 30 qof buuxin challenges friend iyo eventiska saaxiibayaal challenges friends iyo eventiska oo kaliya arki lahaa waa hadda aanan 30 qof aan keenin marka hadda waad kaanaysa lacagta uma arkisid meel aad marayso ma arki application kala door ka dili kara misid xataa hal door iska 0.5 light ka cuni karin to way meeshii aad kala baxaysid baad adkaanaysaa marka xaggan wada jeedaan $30 ba hadda ii diyaar aniga oo kala bixi karaya laakiin videogan waa videoga influencer aan kaga hadlay oo videogan lacagta kaga hadli doona sida loola baxayo video gaar ah oo si nadiif ah uga hadlayo oo waadix ah oo toos ah adoo kaga bogan doontaan mar rabo inaan influencer-kii video isdhex geliyo anoo lacag kala baxay mar rabo saaxiibayaal inaan kala saaraa raba labada videoga lacagta iyo videoga influencer-ka si ay dadku waxaan u kala fahmaan saaxiibayaal laakiin marka aan isku dhex qaso labadiba dadku way ku adkaanaysaa marka hadda wada jeedaa $30 ba diyaara $100 kaliya waxay iga hadhay only ay soo weynay saaxiibayaal sorry si all ba taabanaysaa si all marka taabtay halka wada jirta $100 xaqiisa hoos akhri maxaa ku qoran only 7 invite to unlock the reward yani wuxuu ku leeyahay kaliya 7 qof kaaga hadhay si aad $100 u gaadhid inaad invite garaysid xagan 74 qof oo kaliya ayaa iga dhiman si aan $200 loo helo marka 74 qof buuxiyo buu unlock sameeyay yani tiktok yara $100 xaga sare ka saaran black blue-ga tiktok soo kale marka xagan hoosana $100 saasa lagu helaa marka waxaan rajeynayaa saaxiibayaal influencer faa'iidadiisa ama faa'iidada uu leeyahay inaad ogaataan influencer haddaanad lahayn akoonkaagu dee waxba kama jiraan saaxiibayaal aduun baa wallahi meel ku xiqay waxba saaxiibayaal steps today-gana waxba muhiimad saaran war marikoina ka shaqeyn kaliya isticmaal linkigan video hore waan ku sharaxay friendiska markaad gashid hoos u soo daaday war copy linkigan maxaad u haysataa linkiga markaad copy garaysid la wadaag friendiskaaga saaxiibayaal linkigaaga marka saaxiibayaal qaad oo WhatsApp-ka Facebook inta asxaab aad leedahay dhan u dir war ii taabto dhul soo degdeg maxaa kugu wata socod iyo problemka saaxiibayaal linkiga qaad u dir asxaabtaada inta ma sameyn karinayo linkiga qaad u dir asxaabtaada and then lacagtii influencer-ka isku hel oo kala baxda beeto laakiin haddii ay challenge friends iyo events ay ku yeelaan meesha oo aanad wax linkiya sameeyno share gareynin oo 30 qof buuxin oo lacagtaadu 600 iyo jajab si cararso dawaa taxaw khasaar oo aanad arag influencer ba aanad inta saarin ba dawaa ka kac waa hal bacad lagu leeyahay taxabkaaga markaan yow waxaad rajeynayaa inaad fahmi doontaan videogan xiga waxaan kaga hadli doonaa haddii alla qadaro aniga oo lacagta kala baxaya oo aan idin tusi doono step by step anoo lacagta sida looga baxo laakiin saaxiibayaal horta soo dhisa maxaan idin tusaa anoo lacag kala baxaya haddaan influencer bidin yeelin saaxiibayaal isa soo dhisa horta influencer sameysta lacagtiina kulul marka aad aragtaan baad bodboodi kartaan saaxiibayaal meelaha ku qori kartaan warniyo si lacagta looga baxa laakiin adoo application-ka soo degsan oo influencer aanu ku lahayn saaxiibayaal oo aan influencer ku lahayn oo application-ka soo degsan oo waxba share gareen oo 30 qof aad buuxin inaad iska soo qortid message waa been application aad iska soo qortid waa wax aad looga fiican saaxiibayaal iska soo qor wixii aad u hubsan oo dabagelin oo
ku tacbin oo waxba share garan haska soo qorin saaxiibyaal waa been waa fake application maxaa fake saaxiibyaal waxiiba ma soo tijaabinay marka ilaa hadda dad baan aaminsanay waxaan in lacag laga sameeyo laakiin caddeynta waan idin la wadaagi doonaa saan hore soo sheegay caddeynta waan idin la wadaagi doonaa aniga oo kala baxaya oo marka saaxiibyaal wax raba hal mid inaan idin si faa'iideeyo lacagta wax lagu bixi doonaa PayPal ama Mastercard labada kolba keeda haysatid marka insha Allah biidnillah waan tus doonaa saaxiibyaal anoo lacagta kala baxaya marka ma rabo imka $30 saaxiibyaal inaan kala baxo laakiin waxaan rabaa saaxiibyaal lacag macquul oo buuran inaan kala baxo saaxiibyaal way fahmaysaa Virginia $100 ama $200 saaxiibyaal mid ahaan inaan kala baxo oo waxba iga xigaan saaxiibyaal midna 7 qof iga xigaan midna 4 qof laakiin $100 ma rabo waa $100 haddaan imka ku dhufto ma garanaysaa saaxiibyaal dee waxa ma faa'iidiyo coinskana way iga go'ayaan saaxiibyaal zero waan kasoo bilaabaya oo waxay noqonaysaa 30 qof oo kale inaan sii gudbiyo marka wax ma rabo in video inuu sii dheeraado influencer hadda kadib wad ka dheregsantiin cid idinka sheekeynaysa ma jirto sida lagu helaana wax weeye sida wadada saxda weeye aad baa mahadsantiin